السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيارة شرفت الوين سلام دمانتين ماني waa chef maad isku soo naqad wacan oo wanaagsan. caawa waxaan diyaariyay casho aad iyo aad u fudud oo ka kooban chicken khudaar iyo salad. waa casho aad iyo aad u fudud. hadda waxaan soo qaadanayaa chickenka shafka ah maaragtay dhaxda ayaan ka kala jarayaa. sida marka uu kala jaro mid kale ayaan soo qaaday haddana sidoo kale ayaa saasigan dhaxda ka kala jaraya. halkan waxaan ugu jiro waa vinegar amba qal soo taqaanid soya sauce. halkan waxaa ku jira qaando maraq digaag ah iyo qaando curry powder ah iyo qaando haafkeeda ah oo biryani spices ah iyo food color oo qaando haafkeeda ah. qaando haafkeeda oo waliba wax yar ka dhiman qaando markii saddex loo dhigo dhig kamid adiga. food color waxaan ugu talagalnay sidoo uu qurux badiyo maarta chickenka qurux ugu dhigo. waxaan ku shubay halkaas arkaysaan saliid vegetable oil aan ku shubay. haddana waxaan ku darayaa vinegar. waxaan kaloo ku darayaa maxay ahayd soya sauce spiceski haddana ku shubayaa. marka alaabtan ayaan si fiican isku dhex gelinayaa marka isku qasaya. runtii saan u sameynaya haddaad u fiirsatid waa wax sahlan oo maaragtay aadna u macaan aadna u fudud xaqiiqatan. spiceka markaan si fiican isku dhex geliyo ayaan chickenka markaas dhex gelinayaa ilaa muddo waxaan u deenayaa 6 daqiiqo ilaa 7 daqiiqo spiceka si fiican u dhex galo chickenka. fiican ayaan isku qasaya isku dhex gelinayaa. hadda waxaan jarayaa khudaartii oo ay ka kooban tahay barbarooni 3 nooc ah, in yar oo carrot ah iyo basal. birti ayaan noo soo kulaatay. birtaawii ayaan maaragtay ku darayaa butter yar. meeshaad saliid kaga shiili lahayd waxaa fiican inaad butter ku siishid maadaama aad maaragtay jeceshahay cunto healthy ah inaad cuntid haddana macaan. birta aad uma kuleynin zero medium ayaan ku leeyay because birta zaid u kulaysid saliidana ay kulashahay chickenka markaas ugu ridid markii uu ka madoobaanaya ama uu ka gubanaya. waxaa loo baahan wax qurux badan inaad sameysid si macquul ku bislaado. ما شاء الله يعني spices kii wixii dhan markaas ku daray chickenka san ayuu qurux badnaaday uu gaduutay. xaqiiqatan cuntada waxaa loo baahan yahay 3 shay ka kooban tahay. waa aragtida koobaad, 2 carafteeda, 3 iyo markaad cunaysid inaad dhadhankeeda ku macaansatid. hada chickenka ma sha Allah saad arkaysaan dhinac kale ayaan u gadinayaa haddana. markuu yani asleeya leelah wuu bislaaday ayaan dantaan ka bixiyo ayaan waxaan gelinayaa qaybta hoose ee foornada. qaybta hoose ee foornada waan sii kuleystay muddo 6 daqiiqo ilaa 7 daqiiqo ah ayaan qaybta hoose gelinayaa idoo kulul. sorry hadda waan ka saarayaa chickenka oo yani qaybta hoose foornada ayaan gelinayaa. marka khudaartan waxay ka kooban tahay waxa weeyaan waa spinach, dhowr
بربروني dhowr nooca basal iyo carrot jinka qaybta hoosaan gelinayaa xaggan haddana waxaan soo saaray waa garoon sokor amba vegetable oo dhowr nooc ka kooban يعني qudaartan iyadoo mix ayay taalaa dukaamada waa qudaar aad u sahlan macnaha karisteeda oo wax fudud waaye waana maaragtay caafimaad ahaan way fiican tahay qudaarta mar kasta qofkuna qudaar cuno aad bay u fiican tahay runtii qudaar chickenka kalluunka wax aad u fiican runtii qofka mar kasta uu cuno غير إن شاء الله فيديوهاش هذا وحي كبلاد وصو بدنيا مرة وبانا cunto sidaan u qurux badan ayaan maaragtay idin soo sameynaya niyo kala dhigaya si fiican saad u fahantaan insha Allah video waxaan rajeynayaa inaad maaragtay like ku badisaan oo maaragtay share ku qabataan oo asxaabta kale sii gaarsiisaan cashadiisana ayayna ugu soo baxday qurux badan ayay ku soo baxday arkaysan ma sha Allah indhahay soo jiidanaysaa dhammaantiin waxaan idin leeyahay daawashada videogan daawateen ku mahadsantihiin kulan dambe oo xiiso leh insha Allah dhammaantiin baan waxaan idin leeyahay jawiga idin wacnaado